Al-Shabaab sidee ayuu u dhacay weerarkii la soo abaabulay oo Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Masagawaay xogihii ugu dambeeyay iyo qasaarihii ka dhashay weerarkaas ayaan kula wadaagayaa ee fadlan nagu soo biir boqolaal Al-Shabaab ka tirsan oo la sheegay inay xalay u soo dhawaadeen Masagawaay oo ka tirsan bariga gobolka Galgaduud ayaa saakay jihooyin kala duwan xabadda uga soo bilaabay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka aroornimadii saakay ayay xabaddu bilaabatay waxaana xigay in jug waaweyn ay adeegsadaan dagaalamayaashii Al-Shabaabka ahaa ee weerarka soo qaaday ciidamada dawladda oo iyaguna aad u dhiiranaa ayaa xabad kala hortagay Al-Shabaabkii soo weeraray Masagawaay oo ka tirsan degmooyinka hoostaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud waxaana hadda ku sugan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo macawisleyda beesha Waceesle oo xilligan dagaal adag uu kala dhaxeeyo Al-Shabaab sida aynu wararka ku helnay 3 saac oo xiriir ah ayuu dagaalku socday waxaana markii dambe ciidamada dawladda iyo dadka deegaanku ay xasiliyeen ammaanka magaalada Masagawaay Al-Shabaab ayaana dagaal culus kadib dib iskaga laabtay dhulkii hoodka ahaa oo ay ka soo duulaan tageen bariga gobolka Galgaduud ayaa ah furin dagaal waana meesha kaliya ee Soomaaliya ah oo dagaalo iyo howlgallo ay ka socdaan maadaama ay joogsadeen dhaqdhaqaaqyadii dawladda ee Al-Shabaab waad ku maasantahay daawashadaada fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto muuqaalkana aad u soo gargareyso saaxiibada